بسم الله الرحمن الرحيم دمان مدحدا قرنكا ee madaxweynuhu u horeeyay waftiga iyo dadweynaha sharafta iyo karaamada leh reer Qorilugud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh reer Qorilugud aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta ay maanta oo dhan laga taagnaayeen shacbiga inta leeg ee ay sugayeen madaxweynahooda iyo waftiga uu hogaaminayo ilaa gobolka ugu dhacay iyagoo ciroole iyo caruur rag iyo dumar bacadka taagnaa aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa annagoo madaxweynahana ka wakiilay soo halkan noo fadhiya aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr talabaad waftigana wuxuu ahaa gurmad abaaraha in la taakuleeyo dadka dhulkii aanu soo marrayna waxa indhahayaga aanu ku soo aragnay wixii jiray waxaananu ku soconnaa in la helo qorshe haddii alla yidhaahdo dayr dabadeed baynu joognaayo jiilaalku dheeraado dadka wixii loo qaban lahaa iyo qorshihii dheeraad sidii loo arki lahaa ee loo soo darsi lahaa madaxweynuhu socday waxaa kaloo nuu soconnay maanta dadka tabaalaysan wixii laga qabanaya in aad iyo aad loogu dadaalo madaxweynuhu wuxuu waday dhammaan wasaaradiisii howlaha ku shaqo lahaa kii miisaaniyadda wasiirkii maaliyadda wasiirkii caafimaadka wasiirkii xanaanada xoolaha wasiirkii beeraha wasiirkii gaashaandhigga oo haddii ciidamadii loo baahda ah wasiirkii daakhiliga oo amnigii iyo xarumihii wixii leegi lahaa eego dowladdii oo dhan oo guulaysu madaxweynuhu hogaaminayey si dhammaan wixii awaamiro u baahda halkooda loogu bixiyo oo aan meel dambe iyo hebel waraaq loo diray loo yeedhaanay noqonin wixii qorshe ahaa ee maanta loogu talagalay waa la gaadhsiiyey haddana wuu socdaa qorshihii waxaa kaloo nala socda oo madaxweynaha la socdo wafdiga guddidii taakulaynta abaaraha ee heer qaran oo ay hogaaminayaan culimmada iyo ganacsatada iyo xukuumaddu waa u dhammaayeen ayaa wakiil ka socda joogaa oo wixii la qaybinayana uu kormeerayaa waxa la hayana uu soo daynaya kolba halkii ay baahidu badato walaalayaal reer Qorilugud waxaa laydinka mahadnaqayaa sida wacan ee aad uga qayb qaadateen taakulaynta dadka soo guuray ee abaaruhu soo rareen idin soo hayaamay sidaa uga qaybsateen naf iyo maal aydaan waxba uga hagran ee wixii ahayseen baa ula eegtana aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaanu idiin sheegaynaa walaalayaal maanta Soomaaliland oo dhan baa gurmanaysa kii galbeed joogay iyo kii bari joogay Soomaaliland oo dhan waa mid dhibaatada ilaahay keenay waa midaysan tahay malaha dilo waa ka dhagaysateen siday ugu gurmanayeen dadkii halkaa gaadhay dila ee xataa bustayaasha la wadaagay maanta dadku waa u midaysan yahay abaarta ilaahay uun baynu baryaynaa ilaahay baa inaga dulqaadi karaa ilaahay abaarta inaga saaro ilaahay isagaa waaxida abaarta inaga saaro ilaahay roob khayr qaba haynoo keeno oo degdeg ah oo dadkii maalku ku dhargaan intaa kadib walaalayaal annagoo jeclaynu maanta oo dhan la joogna reer Qorilugudow oo geedkan garanayna oo taariikhda magaalada garanayna oo madaxweynuhu aad u garanayo anigu aad u garanayo haddana hawshan ku jiray gurmudka ayaanu goor xun soo maray goor gaaban baan soo raabeynaa ilaa iyo bari iyo laascaanood iyo ceergaabiyo xudunna waa u soconnaa markaa waxaanu ku soo beegnay waqti fiida raalli baa naga ahaanaysa haddaanu raagi weyno ballanqaadkii halkan laga jeediyey ee ahaa riigga iyo biyaha dadka loo taagay labadaba waa lagu dadaalayaa labadaba wixii degdeg laga qaban karaa laga qaban labada riigga iminka xagga idinka xiga haddii ay dhammeeyaan oo hawsha lagu guulaysto magaaladanna ballanqaad waxaa la sii doonaa in loogu dadaalo oo loogu dhaqsado waxaan aad iyo aad ku mahadnaqayaa saa noo soo mar labaad